بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داود يا الواب برنامج كي جار هي waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdullaah khaliif london waxaa farsamada iyo isku dubrid kale muxiyadiin diiriye nuur oo canada jooga caawa waa barnaamijkii hal abuurada iyo hoobalada yaan idiin haynaa daawadayaal waxaan idiin haynaa hoobalad caan ah ahna haliyeyad qaran oo ka mid ahayd hablihii hooyada fanka hoobalada waa beri waad garan kartaan dad qiyaastaan waxaad ka garan doontaan insha allah hordhacaas waxaan idiin haynaa hoobalad caan ah ahna haliyeyad qaran oo ka mid ahayd hablihii hooyada fanka hoobalada waa beri inkastoo ay ka hartay ka heesida fagaarayaasha laakiin weli waa hal abuurad u heelan kuna howlan hooga tusaalaynta shacabka si aan dib ugu hanano haybadan dunida ka lahayn kolkii hore heesa hablo kala leeyihiin baa la yiri ku hees si loo hubsado inay hoobalad noqon karto iyo in kale guddigii hablahaas tartamayey kala hufayey baa yiri qof horey u hoosi jiray baad hoosta naga soo geliseen markay la yaabeen codkeeda halaasiga ah huryo allaha u naxariistee ayaa u hambaliyeeyey oo yiri aniga igu halle heestaada ugu horreysa oon cidi kaaga horrayn naf jacayl haleelay hawl waayi mayse hadimada mar uunbuu dabsi iiga hiilin buu hindisay isagaana laxanka huwiyey hoobaladu heesahay qaaddo tiro kuma heli karno ilayn cidina iskuma howlin inay diiwaan ku hubsato ama filin ahaan loo heli karo hoobaladu waxay kaloo ku heesi jirtay heesta caanka ah ee fagaarayaasha laga qaado habeen iyo dharaar hadalladan dhisnaa afkeenna hooyo oo horumaraan ku haminaa hoggaaminaa had iyo jeer hagnaa oo waan hagaajinnaa ma hagrannee waan u howlgalnaa murtidaan hurinaa kala hufnaa ha qabtirnaa u heelannahay dadweynahan hanuuninaa haasaawinaa danta u hagnaa waxba yaan hadal idinku daaline horaa loo yiri hantaa layska dhacaaye hibo eebba ku siiyey habeen layskama qaado waxaa idin hor joogta hibo lafteedii waa ina maxamed udoon hibo nuura inkastooy dhulku hooyo joogto hibo waa musaafir oo hoygeeda minnesota waa warbaahintii gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda gunnona ma siiso gacansaarna lama lihin mucaaradka cid gooniyana uma adeegno saad fikirka waa lagu kala gedisnaan karaa danta guud waa mid gebagabada hadalku goori ayaan waa sidii gujis allah u naxariistee u lahaa aanu kuu garawnee gaar hayow geyiga ilaali sidaad u jeeddaan hortiina caaw waxaa fadhiya oo gaar hayo ku bilaabaya fanka iyo halabuurka haliyadaas qaran aad baan ugu faraxsannahay marka sheergareeya online weeye isgaarsiiya barnaamijka caawa waxaan sugaynay inay nagala soo qayb galaan hal abuur caan ah oo la yidhaahdo axmed suleymaan bidde oo naga ballan qaaday inuu kala qayb qaato waxaan dib u dhigaynaa xagga farsamada iyo wakhtiga kala duwan barnaamijka qaybtiisa koowaad caawa hordhac waxaa kaloo ayadana marti noo ahaan lahayd haliyeyad caan ah hal abuurada hibana ay saaxiibba yihiin hoygeeduna yahay minnesota waa cadar axmed kaahin oon rabno inay noqoto sidii critic ama waxaan la yidhaahdo pandit oo kale ilaa adduunka hadda waa isbedelay qofka markii la wareysanayo waxaa la rabaa qof yacni arrimahan wax ka yaqaan oo ka soo bixi kara cadar waxaa saas ugu xulanay hadday yeesho fanaaniintii hore way tahay marka loo eego dadkan dambe kuwii hore markii loo eegana waa kuwii dhexe weliba hadda iyadu waxay ka shaqaysaa communitiyaasha iyo fanaaniintan cusubna waa aragtay kuwii hore way taqaanaa waa qof isku xiri kara marka waxaan ka dhigan doonaa qaybta koowaad ee barnaamijka hadda waa hordhac hibo dadku waa ku sugayaan ku soo dhowow xaggee ku dhalatay see fanka ugu soo biirtay bal ku bilow intaas cabdiwaaxid owan waxaan ku dhashay magaalada booramaan ku dhashay sanadku markuu ahaa 1954 waxaan joogay boorama ilaa 9 jirkaydii oo hargeysa intii kale ilaa fanka ka soo gelayay hargeysaan joogay marka sidaasay taariikh nololeedaydu
aad iyo aad anigoo u yarna waan ku hami jiray fanaanadiina noqdo oo waxbay igu dhiiri jiray dadka deegaanka xaafadda aan ku noolahay markaan heesaa idaacadda ka dhegaysteen in ugu heeso waxay odhan jireen gabadhani waxay noqon doontaa hoobalad fanaanintay ka qaybgeli doontaa aniguna sidii baan laabta gashaday sidii baan ku hamiyeyey inaan yar dheeraado waxaan naawilaba markii ilaahay gartay yaan fankaan waa aad u yar kusoo biiray waxaan joojiyey fankii sanadkii 2015 intii dambana waxaan u wareegay hal abuurka bas waxaan kaa ilownay horta waxaan kaa tacsiyeynaynaa labadii maamo ee fankaaga horreeyey sida shams abubakar guudcarwo iyo xaliimo cabdullaahi cami dalays allah u naxariistaan leenahay saaxiibadaa waa kaaga tacsiyeynaynaa fanka ma waxaad u gashay allah u naxariisto aniga keliya imaaha waalid dhammaan intii igu horreysay iyo intii aniga ila mid ahayd iyo intii iga dambaysayba waalidkooday ahaayeen shams abubakar guduudo iyo khadiija cabdillaahi dalays jannada allah ka waraabiyo laba qof aad u qiimo badan iyo isku sanad israacay markaa dadweynaha soomaaliyeed oo dhanna way u duceeyaan annaguna mar walba u ducaynaa jannada allah geeyo waa waalidiintii fanka burburka ka hor iyo ka dambaba iyaga u waalida allaha u naxariiso daawadayaal mar kale waxaa marti noo ah halyeeyadii qaranka kana mid ahayd hablihii howlada waa beri barnaamijku waa hordhac keliya waa iska dacayd hordhac wuxuu noqon doonaa ilaa 20 qaybood gaar haye wuxuu diyaar u yahay qaab cusub aan horey loo arag in aan u wareysano fanaaniinta saa idiin sheegnay waxaan dul istaagaynaa riwaayad kasta iyo heese kasta shabeelnaagooda kale u soo horeysa hees baa ka horeysa waxaa dhici karta riwaayadaha qaarkood inay socdaan dhowr maalmood aan wareysi ka qaadno marka isgaarsiiya barnaamijyadaas quruxda badan baa idiin bilownay hal isgaarsiiyo hibo marka adigu fanka ma waxaad u gashay iskuul sida meelaha adduunkan iskuula loo galaa sida folklore dancing iyo mise waa wuxuunu iska hibo ah horta maaragtay waddankeenu ma lahayn iskuul loo galo adduunka badan ee afrika iyo eshiyayn badan oo inala madiina ma lahayn laakiin iskuulku wuu buunbuuniyaawne fanka gundhigiisu waa talentka loo dhasho marka waxaad ku arkaysaa adduunyada hore u martay rag baalashla ahaa oon iskuulba gelin annagu waxbaaban baranee rag maxaydaanay adeega ahaa oo fanka gala ama kubadda ciyaara oo maanta heerka ugu sarreeya jooga marka waxani waa talentka ugu qaalisanina waa ka loo dhasho waa tahay marka waagii hore adduunka xiriir telefoonna ma jirin transportation ma jirin see ku gashay see kugu sahlanaatay inaad tagtid oo lagugu tijaabiyo in hees lagaa qaado see xarigga u xirtay xarigga waxaan u xidhay horta waxa dadku jecel yahay kii gaadha weeyaan horta anigoo jooga in magaalada hargeysa ayaan waxaan maqlay gabadhaan engel maadeer nahay oo fanaaniintii hore ka mid ahayd oo farxiyo cali faarax la odhan jiray ayaa fanaaniinta muqdisho ka mid ah xamar baan ugu imi imtixaan baa layga qaaday iyadiiba maxaydaane hormuudii noqotay laakiin kuwaan guulaysantaa waxaan waaye anigoo aad u baqay oo maaragtay markii hees laygu maaragtay wada gariiray marka waxba maan helin marka hargeysaan ku noqday hargeysa imtixaan laygaga qaaday waan ku guulaystay waxaana booska la rabay ee anigu aan bedelay sayna xaajan oo fanaanadu inoo caana ahayd ayaa ka wareegtay radio muqdisho waxay u wareegtay gaashaandhigga xoogga dalka marka booskeedii baa gabadh loo raadinayay annagoo 3 gabdhood ayaan booskaas qof waliba soo codsaday fanaanada weyne caanka ee sahre axmed jaamac iyo aniga iyo gabadhaan caan noqono la odhan jiray jamaad 3dayada anaa ku guulaystay sidii baan markiiba fanaanad caan ku noqday markaan ama 2 bilood ku jirayna maxay ahayd anay waxaan qaaday heestii muxuu ahaay naf jacayl haleelay haddana waxaan qaaday heestii axmed selebaan bide oo isaga weliba aan heeso badan iyo riwaayado badan ka qaaday axmed oo riwaayadahan ka qaaday ay ka mid ahaayeen muxuu ahaay murugiya macaan heesaha axmed selebaan leeyahay caanka aan qaadayna ay ka mid tahay waadiman barti iyo baridii hargeysii halkii aynu berigii ku wadaagnay barasho
oy ka mid waxaas ahayd hiba waxaasoo dhan waxa hoos laga cajibo ciddii dhegaysataaba marka iyo heeso badan oo aan la qaaday cabdikhadar iyo qalinle oo ruwaadiisa ku jirtay murug iyo macaan marka waa hwaanadii aniga iyo macallimiinta maxamed hurri oo dhintay allah u naxariiste labadooduna saaxiib bay ahaayeen iyo axmed salabaan bidde waa macallimiintaydii koowaad isteeblabaadkiina waxaan usoo gudbay xamar ruwaadii ugu horreysay shabeelnaagood bandhigay waan caan ku waa tahay saan dadka u ballan qaadnay daawadayaal waxaa marti noo ah halyeeyadii qaran barnaamijkan waa hordhac keliya waxaan ugu talagalay dacaayad ahaan waxaan dul maraynaa isku dayaynaa bal heesihii riwaayadihii si u taxan yihiin keliya si hadday xataa wax noo qoran ma leh 50 sanay ku jirtay fanka marka waxaa dhici karta dad badan oo taageerayaasheeda ah inayba ka badshaan riwaayadaheeda si isugu xigaan waana wax dhacan ognahay taas way dhacdaa adduunka marka inaad ka qayb qaadataan baan rabnaa isgaarsiiya sheergareeya waxaan samaynaynaa hibo marka heestii ma xasuusataa aad ku gashay tartanka meesha lagu qaaday may maqlaysaan may maqashaan waacido kuma maqlayo waxaa khadkaa xumaaday waa isku dayayaa kuma maqlayo hadda may maqashaa ma ku maqlayo adiga codkaaga malaha si u gaabtay ama waa hawada okay waxaan samayn karnaa hadda may maqlaysaan halkii hore ka hadlaysa okay waxaa laga yaabaa okay daawadayaal kuma maqlayo khadkeena isaga waayo okay haddana waxaa dhici karta daawadayaal saaad u jeedaan waa marti noo ah halyeeyadii qaranka marka adinku haddaadna maqlaysaan adinku waadna maqashaan dadweynuhu anigu ay maqashaan sida muuqata waxaad moodaa cilad baa jirta waa isku dayaynaa si kastaba ha ahaatee barnaamijku waa hordhac weeye waxaanu ugu talagalnay inaan idin hor keenno halyeeyadda oon dhahno waxaan idiin haynaa intaas oo waraysi baa soo socda oo waxaan keenaynaa fanaaniintii iyo hal abuuradii wax u alifay marka bal aan ku noqdo inay maqlayaan hibo hadda may maqlaysaan hadda ma lay maqlaa daawadayaal oo u jeedaan wax cillad baa jirta waa isku dayaya cillad baa jirta layma maqlayo marka waa soo noqonaynaa marka insha allahu anigu waa ku maqlaya adiga may maqashaa adiga may maqashaa waa jaraynaa marka